gacan iyo in geed laga hadlayo gobonnibaa sheegtay geeraarsho dheer iyo dagaal warangalaan sheegtay meeshaan ku geylamay colkeeduna go'aan sheegtay garbidaan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegtay waa tix ka mida gabayga garaad wiilwaal magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalidu waxa ay soo martay marxalado kala duwan iyo maamulo kala duwan maamulada kala duwan waxa ka mid ahaa saldanadii dhaqameed ee garaad wiilwaal oo ah midii xoreysay ama gacanta dadka Soomaaliyeed ku soo celisay magaalada Jigjiga garaad xirsi faarax xirsi oo loo garan og yahay wiilwaal waxa uu ahaa garaad ka soo jeeda garaadada Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waxay ahayd magaalo ay ku yeelan ceelal kala duwan oo ay ka cabaan dadka iyo dunyaduba taasi oo keentay in lagu loolamo gacan ku haynteeda iyo cid lahaanaysa garaad wiilwaal waxa uu magaalada Jigjiga ku galay dagaalo kala duwan balse midka ugu caansan ee uu ku hantiyay guusha waxa uu ahaa dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Jigjiga ee dhexmara isaga iyo cid ay loolamayeen garaad wiilwaal maalintii dagaalkaas uu socday waxa uu wiilkiisa curad ku xidhay geed garbiya oo ku yaala magaalada Jigjiga taasi oo uga dan lahaa tolka ama dadkiisu inaysan daba marin geedka uu ku xidhan yahay wiilkiisa curad dagaalka ceelka lagu daaciyo halkan garbidu waxay ku taalin dhinacan ka xigtay ceelashii dhinacan ka jirtay ciidankiiba labadii ciidan baa isweeraray ciidanka bartiraha ayaa laga soo xoornaaday wiilkii kolku arkay ciidanka la soo wado ay wiilkii geedka ku xidhay garaad Umar kala ku xidhay sida kolkii bartirihi u doomaray ciidankiina soo dhigay uma qori xarig garaadkiina wiilkii waa taagay haragu celiya wiilka in lagu dagaalamo sidaadii loo doomaray qori xarig garaadkiina wiilkii waa jooga iyaguna way soo boodaan qodii sidaadii loogu rogay iyo warqada laga rid ceelka Jigjiga inta bartirihi la geliyo ayaa loo dhigay shaqada ku waraabiya dibadda garaadkuna taasoo ka dhintay ka gadooday Jigjiga la isku haystay taasoo garaad wiilwaal ka deeray oo ku afuufay garaad wiilwaal wadanka isaga xoreeyay wiilwaal de wuxuu ahaa waxa la yidhi qurux badan oo fariida oo rag la mid ahayn yaa oo xiliya cabdu ahaa wiilwaal yaa فريد بوها تلكينا جعل أو تلكي وطا أو تلكي السقجان أو قلين عيل كان السجا حريي أو لو كلت تجي markii garaad wiilwaal uu halkan tilmaamayay magaalada deegaanka markuu tilmaamayay wuxuu yiri biyo u dhow oo ban u dhow oo buur u dhow oo balad u dhow iyadoo ceel laga cabaa ayaan garanayaa buush marka dhibaatooyin badan ayaa Jigjiga loo soo maray wax kolba kii taliya soo wadaba wax la soo wadaba asalkeedii dambe wiilwaal ba xoreeyay oo loo garaad xirsi faarax xirsi maalintaasi waxay ahayd maalintii uu hantay guusha taariikhiga oo ku hantiyay magaalada Jigjiga isaga iyo dadkiisuba